sida loo furtaa account Binance ah. ugu horreyn waxaad tegaysaa halka ugu sarreysa ee searching-ka ah ee boodboodaysa ayaa tegaysaa. waxaa ku qoraysaa Binance. anigoo dhammaystirin Binance-gii sidaa u jeedid waxaa ii soo baxay Binance iyo loogadiisa ayaa ii soo baxday. waxay marka inoo caddaynaysaa in loogada magaca wata uu yahay magaca saxda ah. waa ku dhufanaynaa. markaan ku dhufanno haddii aan kuu soo dhoweeyo URL-ka waxaa u jeedaa inuu yahay www.binance.com. sidoo kale waxaa arki kartaa in sponsored uu yahay oo xayeysiinaysa saaraanta ayaa arki kartaa. qaybta hoosena waxaa ku qoran waa create a free account ama sign up now oo ah account ka furo. si free ah account uga furo Binance. intaas markaad aragtid waxaa kuu xaqiiqoobaya account-kan ama website-kan inuu yahay website-ka saxda ah. waxaa jira website-yo scam ah oo soo kaysiiya website-yada caanka ah sida Alibaba, Binance oo kale, Amazon oo kale. marka waa inaad ka taxadirtaa si aadan scam gacanta ugu gelin. kilig marka ayaan siinaynaa. kilig markaan siino oo gudaha u soo galno wajhad noocaan ayaa noo soo baxaysa. wajhadda marka waa qaabka la isku diiwaangeliyo ayuu noo sheegayaa. tusaale ahaan meeshaan hadda uu korreedo kale email haddaan gelino password ayaa gelinaysaa. qaybta hoose oo yacni ikhtiyaaraad badan buu leeyahay ama options fara badan ayuu leeyahay ama kala doorasho fara badane. haddii marka aadan rabin inaad email iyo password iyo kala duwan aad isticmaasho wuxuu ku leeyahay ku xiro Google account-kaaga. sidoo kale wuxuu ku leeyahay Apple-kaaga ku xiro, Telegram-kaaga ku xiro ayuu ku leeyahay. marka farqiga u dhexeeya waxaa waaye hadhow email iyo password aad kala gelinaysa ma jiro oo account-kaaga ayaa toos ugu xiranaysaa. security ahaan ama amni ahaan ma fiicna marka. oo waxaa fiican inaad isticmaashid email-kaaga iyo password-kaaga kala gaarka ah. sababtoo ah haddii Google-kaaga gacanta lagu dhigo Binance-kaaga waa la hayaa. haddii Apple-kaaga gacanta lagu dhigo Binance-kaaga waa la hayaa. haddii Telegram-kaaga gacanta lagu dhigo Binance-kaaga waa la hayaa. waxyaabahaas oo dhan marka ayaa ka badbaadaysaa. marka anagu saana waxaan ugu dhicin email caadi ah ayaan gasho doonaa. halkaan ku qoran tahay email ama phone-ka ayaad ku qoranaysaa. marka email-ka geliso waxaa leedahay next ayaa leedahay. next markaad tiraadid waxaa lagu dirayaa code ayaa lagu dirayaa. oo code-ka waxaa lagu diray email-ka ayaa lagu diray. email-kii ayaan gudaha u galnay oo kor ayuu u saaran yahay. waa ku dhufanayaa. markaan ku dhufto activation code ayaa la siiyey oo code-kii ugu horreeyay oo lagu active-gareehayo waa. waxaan sameynaa marka waa riixayaa. markaan riixo waxaa ii soo baxaya copy, share, select all. marka waxaan leenahay copy ayaan leenahay oo waan qaadanay. markaan qaadano waxaan paste ku leenahay marka qaybtan verification code-ka laga rabo inaan gelino. lambarkii waa kana. kadib waxaa la yidhi samayso password. password-kaaga marka waa inay ku jiraan number, at least hal number waa inay ku jiraa. sidoo kale upper case ama xarfaha waaweyn waa inay mid ku jiraa. characterska waa in ayagana ku jiraan. waxaa samayn kartaa xarafka ugu horeeya oo kale. waxaa fiican inaad ka dhigatid capital. kadib xaraf character iyo number sida ugu fiican waa sidaas. saa u jeedid saddexda qaybba check ayaan loo saaray. kadib maxaa leedahay next ayaa leedahay. waan la soo dhoweeyey. account-ka waan loo furay. sidoo kale waxaa lagaa rabaa marka referral ID. haddii marka referral ID ay sidoo kale waa ku xiran kartaa. haddaad haysanna kuma qasbanid. next ayaan leenahay. hadda marka waxaan ka rabaa inaan soo degsano application-ka Binance inaan soo degsano ayaan ka rabaa. marka waa inaan tagnaa Play Store-ka waa inaan galnaa. Play Store-ka markaan soo galno meesha searching-ka waxaan ku qoraynaa Binance.
Binance ayaan qoraynaa. Binance markaa qortid waxaa kuu soo baxaya marka ka hadda noo soo baxay waa Binance US. waa qayb gaar ah oo laga isticmaalo Mareykanka. Annaga ma rabno marka qaybtan. qaybtaan rabno waxaa waaye waa qaybtaan ku qoran tahay Binance buy Bitcoin and crypto. taas ayaan ku dhufanaynaa. markaan ku dhufanno waa inaad iska xaqiijisaa midka hadda aan la digayno 100 milyan ayaa degsatay oo qofood. sidoo kale qaybtan ayaa iska fiirinaysaa logooyinkiisa iyo wixiisa hoos u soo baxaysa rate-ka oo kale dadku siday aragtiyaha ka bixiyaan ayaad maaragtay arkaysaa. waxaas oo dhan waa qayb ka mid ah hubinta applicationka aad la degaysid. marka waxaan leenahay install ayaan leenahay. degitaanka ayaa noo socda. installationka ayuu hadda sameynayaa. applicationka hadda waa noo diyaar. waxaan ku dhufanaynaa marka open ayaan ku dhufanaynaa. open markaan ku dhufanno sidaan ayuu noogu soo furmayaa. luqadda ayaan dooranaynaa. English ayaa noo saaran si default ah. next ayaan dhahnay. qaybtaa marka wuxuu ku leeyahay haddii aad yacni qof horay kriptada ugu jira tahay iyo haddii qof cusub aad tahay labadaba kala caddee. marka anaga waxaan leenahay new ayaa manahaba. marka intaas sameyno waxaan la ka rabaa marka wajhada marka kusoo baxdo login ayaan dooranaynaa. marka qaybta hoose login ayaan dooranaynaa. markaan login dooranno emailkii aan soo diiwaangelinay ayaa meeshaan gashanaynaa. kadib waxaa leedahay next ayaa leedahay. passwordka ayaa gashanaysaa. maxaan loo diray code kale ayaan loo diray. maxaan ku laabanaynaa emailkaan ku laabanaynaa. emailka ayaan ku laaban doonaa. codeka waa kaasa. kan waa login verification. waan soo koobiyeyanaynaa. markaan koobiyeysano waxaan imaanaynaa Binance ayaan kusoo laabanaynaa. kadib waxaa leedahay si automatic aad isku buuxinaa markaad dooratidba. gudaha marka ayaan usoo galnay account-kii.